نبتقليني بيدكرنا هنا ورا عند الموضوع عماه والموضوع عماه لا الله نغرسان نبتقليني نكدو ذينا حقيقة أمر قعدت التاجة waxaa loo baahan yahay nabadgelyada in laga shaqeeyo oo la maalgeliyo oo maalin kasta loo hawlgalo haddii taa la waayo burbur ayaa dhacaya nabadgelyadu waa wax qaali ah markaa waxaa loo baahan yahay had iyo jeer in la xoojiyo nabadgelyada oo waxyaalaha nabadgelyo darrada keenaya dee maaragtay laga shaqeeyo maalin kasta cidina ma odhan karto nabadgelyadii baanu helay oo gaadhin kollay labadii bilood ugu dambeeyey mudanayaal waxaad maqlayseen in dilal badan dhaceen hadday berbera ahayd hadday burco ahayd hadday oor weyne ahayd dhammaantood dadka isku guulaystay dadkii dadkaada ahayay in dhammaantood gacanta lagu soo aad iyo aad iyo aad bay wanaagsantay baa dagaaluhu mar haddii laba shil oo xitaa laascaanood ka dhigay mid waa la qabtay kii xalayna waa lagu daba jiraa isaagun baa kula warbeeyay waayo maanta ma jirto maanta dalka nabadgelyadu qaybo badan bay leedahay weliiska horimaadna ma jiro wax kale ma jiraan waa dilal shakhsiyaa jira kuwaasina oo bilihii u dambeeyey ahaayeen taasina waa xukuumadda oo sii adkaysa oo ka hortaga samaysa nabadgelyadu Soomaaliland waxay maraysaa meesha ugu fiican ee aan dunidu maanta haysan nabadgelyada wanaagsan ilaahay inoo siiyay waxa xusid leh shaygii ka dhacaba Soomaaliland ama qofkii wax dilaba gacanta lagu soo dhigo marka si looga taxadiro in deegaanada oo degmooyinka laga sameeyo gudiyo nabadgelyo oo jira oo la socda dhaqdhaqaaqa iyana waa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay oo islaamaadka xiriirka ciidanka nabadgelyada ee booliska iyo dadweynaha waa in la xoojiyo waa in kalsooni la abuuro ay ku wada shaqeeyaan